waxaan u sheegaynaa oo nagu nasteexaynaa dadka mas'uuliyadda qaranka haya hawsha ay u hayaan day wasiir yihiin day xildhibaan yihiin haday sarkaal ciidan yihiin inay shaqadooda ku ekaadaan ay ka daayaan faragelinta garsoorka mana loo dul qaadanayo mar dambe inay maaragtay farangelin garsoorka cidii hadda ka bacdi la timaada wixii sharcigu qabo ayaa la horgey doonaa maanta ay taariikhdu tahay 4 bishii afraad 2022 waxaa shir isugu yimiday garsoorka gobolka Galgaduud heerkiisa koowaad maxkamadda degmooyinka iyo maxkamadda gobolka iyo maxkamadda heerka labaad ee racfaanka garsoorka maxkamadda sare waxaa looga hadlay horumarinta garsoorka dejinta cadaaladda iyo kiisaska maxkamadaha wada shaqeynta garsoorka iyo booliiska iyo wada shaqeynta garsoorka iyo xafiiska xeerlaaliyaha guud dood dheer ka bacdi waxaa la go'aamiyey oo shirkii lagu soo gabagabeeyey in degmo kasta iyo tuulo kasta loo dhaweeyo dadka cadaaladda si furan oo madax bannaan si dadku uu cadaalad u helo intaa kadib waxaa lagu kala waajib qaatay in la dedejiyo dacwadaha ciqaabta oo meelaha qaar xag nabadgeliyo ay maaragtay u sugnaaweysay in si la rabo wax looga qabto shirkaas wuxuu ku dhammaaday si guul ah waxaana looga dooday xeerarka kala duwan oo maxkamaduhu ku shaqeeyaan sida xeerka habka madaniga xeerka ciqaabta xeerka habka ciqaabta wada shaqeynta garsoorka dhexdiisa wada shaqeynta ciidanka booliiska ee garsoorka wada shaqeynta xafiiska xeerlaalinta iyo garsoorka waxaana ku soo gabagaboobay jawi wanaagsan oo is-afgarad leh oo si hufan in dadka loogu adeega waxaana bulshada u rajaynaynaa gobolka Galgaduud ku dhaqan in laga shaqeeyo dowladnimada in cadaaladda garab la siiyo in maaragtay dadku ay u xugun tagaan kitaabka Alle iyo shariicada islaamka oo runtii uu kala xaqaadayo oo san qofku haduu wax qof kale wax ka tabto oo inta qora qaato oo ninka walaalkiisa waxad gudub ku sameeynin in laga waatoobo qabiil isu dilida bishaan barakaysan oo Ramadaan waa bil fadhiilo leh ilaahi maaragtay la baryo dadka dhiigooda la nabadgeliyo maalkooda la nabadgeliyo dowladnimadana la taageero oo maaragtay taasaa looga bixi karaa dhibaatada jirta oo dowladdu hadday si hufan u shaqeyso oo dadweynuhu ay ka qayb qaataan nabadgelyada waxaa dhacaysa in dadku uu helo cadaalad oo gaaro horumar haddaan taa la helinna wax shaqeynaya iyo wax la gaari kara ma jiraan waxaan isleenahay haddii cabasha timaado garsoorka laga cabanayo darajooyinkiisa kala duwan maxkamadaha darajada koobaad haddii ay xukun gaaraan cidaan ku qancin waxaa u furan maxkamadaha darajada labaad inay tagaan oo racfaanka hadday ku qanci waayaanna maxkamadda darajada saddexaad inay cabashadooda geeyaan taasoo 3 garsoore gelayso insha Allah 3 maxkamadood iskuma raacayaan cadaalad darro iyo musuqmaasuq midna iskuma raacayaan dhammaan waxaan garsoorka farayaa in si hufan oo cadaalad ku jirto dadka loona soo dhaweeyo xuquuqdoodana loo sugo midka daalimka la daalimnimadiisa lagu cadeeyo si ciqaabtiisa loogu fuliyo midka xaqiisa iska lama dhibanahana xaqiisa loo oofiyo waxaa kaloon maaragtay aan rabnaa inaan ugu baaqo dadka aan garsoorka ka tirsanayn ee qof dacwo qabiilnimo u soo raacay ama mas'uuliyad xil ay haayaan u soo raacay ee maxkamadda jahawareerinaya inaan la ogoleyn labada qofoodoo dacwadu ka dhaxayso hadday qareen qabsadaan cid aan qareen ahayn
ama maxkamaddu ugu yeerin kiiska inaysan maxkamadda imaan karin jahawareeri karin dacwooyinka qabiil loo soo dabakici karin mas-uuliyad iyo xil uu haayo qofku u soo dabakici karin ninna laga akhrisa maayo garsoorku wuxuu u madax bannaan yahay sharciga inuu dadka ku garsooro wuxuu amarka ka qaadaana garsooruhu waa sharciga taa waxaa damaanad qaaday dastuurka dalka kan federaalka kan dowlad goboleedka galmudug iyo xeerka nidaamka garsoorka waxaan u sheegaynaa oon ugu nasteexaynaa dadka mas-uuliyadda qaranka haya howsha ay u hayaan hadday wasiir yihiin hadday xildhibaan yihiin hadday sarkaal ciidan yihiin inay shaqadooda ku ekaadaan ay ka daayaan faragelinta garsoorka mana loo dul qaadanayo mar dambe inay maaragtay farangelin garsoorka ciddii hadda kabacdi la timaada wixii sharcigu qabo ayaa la horgey doonaa insha allah waxaan rajaynaynaa bishan ramadaan in ilaahay madar khayr qaba na siiyo oo ummadda abaarta ay uga baxdo roobkana ilaahay soo kayna raacsiiyo colaadda iyo dembiga iyo dhibka cidda geysaysana ay ka waantowdo walaalnimada iyo islaamnimada iyo dowladnimadana loo istaago wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu